waa mar kale iyo barnaamijkeeni talo dhakhtar aynu ku soo qaadan doono xubin cusub oo la magac baxday ma ogtahay. xubintan waxaynu ku baran doonaa xubnaha jirkeenu ka kooban yahay. waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa beerka, waxa uu yahay iyo shaqada uu qabto. ma ogtahay beerku inuu yahay xubinta ugu culus xagga miisaanka xubnaha jirka oo dhan, waana qiyaas ahaan 1.3 kg ama ilaa 1.5 kg. waana xubinta labaad ee ugu ballaaran jirka, waxa uu ka horeeya maqaarka. ma ogtahay in beerku yahay xubin dib u tarmi karta haddii la jaro badh ka mid ah. waxay leedahay wax afka qalaad lagu dhaho compensatory hyperplasia. beerku waa meesha u badan ee sunta jirka lagaga saaro, suntaasoo ka iman karta cunnada aynu cunno iyo dawooyinka aynu qaadano. ma ogtahay in beerku soo daayo maado la dhaho bile, taasoo qabata shaqooyin dhowra ayna ka mid tahay in muuqaalka iyo kalarka saxaradu leedahay in uu baylku sameeyo. beerku waa xubinta soo saarta ama samaysa dhiig-xinjirayaasha ee loo yaqaano calorin factorieska loo yaqaano. beerku waa kaydka ama tamarta jirka ee bani'aadamka. haddii aanad haysan isaga, waad shidaal ama tamar beeli lahayd markaad gaajooto, ama waxaa qasab kugu noqon lahayd inaad cunto mar walba haysato si aad u isticmaasho. inta u badan daawooyinka aynu qaadano waxaa lagu farsameeyaa beerka si dawadu u noqoto mid qabata shaqadii loogu talagalay. beerku wuxuu mar kale soo daayaa bile, kaasoo ka qayb qaadanaya soo noogitaanka cunnada aynu cunno. sababta uu casaan xigeenka u noqday beerku waxay tahay beerku wuxuu qani ku yahay dhiigga. qiyaas ahaan 10 ilaa 15% dhiigga ayaa laga helaa beerka. qalliinkii ugu horreeyay ee beer lagu bedelo waxa uu dhacay sanadii 1963. waxaana sameeyay dhakhtar la odhan jiray Dr. Thomas Starcy oo macallin ka ahaa jaamacad ku taala Colorado, dalka Mareykanka, balse ma noqon mid lagu guulaysto. qalliinkii lagu guulaystay waxaa mar labaad sameeyay isla dhakhtarkii ku guuldareystay qalliinkii hore, waana ku guulaystay. beerka waxaa loo qaybiyaa qayb midig oo loo yaqaano right loop iyo qayb bidix oo loo yaqaano left loop. qaybta midig ayaa ka weyn marka loo eego xajmi ahaan qaybta bidix. beerku waxa uu door weyn ka ciyaaraa la dagaalanka infectionka. waxaanu leeyahay unugyo la dhaho Kupffer cells, kuwaasoo la dagaalama ama burburiya bakteeriyada ama xanuun keenayaasha marka ay jirka soo galaan. shaqooyin intan iyo in ka badan ayuu qabtaa beerku. waxaa mahadoo dhan u sugnaatay Allahii noo abuuray qaabka dhammayska tiran ee cillad walba oo jirkeena ku timaada u sameeyey hab jirkeenu ula macaamili karo.